Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa cilmi nafsiga. Sidoo kale waxaan ugu talagalnay in aan muuqaalkan ku nasano maadaama aan muuqaaladii dambe kaga soo hadalnay taariikho iyo dhiirigelin. Intaas kadib, dadka qaar xiriirkoodu jaceylku waa sida bluetoothka. Marka aad u dhowdahay, adiga ayay kugu heestaan. Marka aad kala fogaataanna, qofka markaas ay u dhow yihiin ayay la jaanqaadaan. Dadka kaftanka badan, si kasta kaftankoodu ha kaaga xanaajiyo, balse marka keliya ay ku anfacayaan waa marka aad ku safrayso waddo dheer. Sababtoo ah waxay ku ilowsiinayaan in waddo dheer aad ku safrayso. Waxaa jira dad iyagoo faraxsan aruuriyo qoraalada iyo sawirada murugta leh. Sababtuna wax kale ma ahan ee waxay rabaan maalinta ay murug dareemaan oo keliya in ay historygooda ama stagekooda ay soo saaraan. Gabdhuhu inta badan waxay jecel yihiin wiil aan balwad lahayn, diin leh, akhlaaq leh, dadka agtoodana ka amaanan. Balse dhibaatada jirta waxay tahay marka ay wiilkaas arkaan walaaltinimo inay isku bartaan ayay jeceshahay. Micnaha xiriir aan walaaltinimo ahayn kama lahan. Biyaha karkarkoodu in aysan waxba bedelin waxaa kuu sheegaya marka ukunta jilcaneed ay adkeeyaan, marna bataatiga adkaa ay jilciyaan. Sidaas darteeda, muhiimaddu ma ahan dhibaatada, balse waa sida aad adigu u jilcan tahay ama aad u adag tahay. Dadka adduunka ugu xun iyo kuwa ugu fiican dunida waxay ka siman yihiin hal qodob, in ay ku xantaan marka aad maqan tahay. Balse waxay ku kala duwan yihiin: mid marka aad maqan tahay ceebahaaga ayuu sheegaa, midna kuwa ceebahaaga sheega ayuu kaa difaacaa adiga oo maqan. Dadka aadka kuugu dhow in aad isqabataan ama aad isdagaashaan waa wax mararka qaarkood loo baahan yahay si aad u ogaato waxa laabtooda kuugu duugan. Waxaad arki wax kaa yaabin karo ama qadarin.